التي تهدف إلى تقويض shirkan halka maalin qaatay waxa uu kulmiyay dawlado badan oo siyaasad ahaan uu xiriirkoodu xun yahay wakiilo matalaya dawladaha Qatar Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya ayaa wada fadhiya shirkan balse markan waxay ka mideysan yihiin garab istaaga Soomaaliya wasiir dawlaha arrimaha dibadda ee dawladda Qatar ayaa shir gudoomiyay madasha waxaana uu sheegay in Qatar ay kaalin muuqata ka qaadanayso garab istaaga Soomaaliya ururka iskaashiga islaamka waxa la aasaasay 1969kii waxaana ku mideysan 57 dawladood 15 ka mid ah dawladahaas waxay qaabilsan yihiin la socodka xaaladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo furitaanka shirkan hadal jeediyay waxa uu ka qaybgalayaasha shirkan u sharaxay waxyaabaha xukuumaddiisu u qabsoomay For the last 18 months, we've been working very hard 18 bilood ee la soo dhaafay waxaanu si xoog leh uga shaqaynaynay in carrying out reforms in dawladdeedu in our public ay gaadho ujeedooyinkeeda muhiimka ah oo ah sidii isbedel loogu samayn lahaa hay'adaha dawladda. We have made progress in our waxaanu isbedel ku samaynay meelihii ugu darnaa ee isbedelka u baahnaa kuwaas oo kala ah dib u habeynta amniga dib u habeynta dhaqaalaha dib u habeynta siyaasadda oo dhan yahay iyo horumarinta adeegga bulshada. The four key pillars afartaas tiir ee muhiimka ah iyo ahmiyadooda ayaa dawladdu ay ka shaqaynaysay 18 bilood ee la soo dhaafay. sida uu qorsho u ahaa 15 dawladood oo ka tirsan ururka iskaashiga islaamka ayay qorsho u ahayd in halkan ay shir ku yeeshaan balse 11 dal oo kaliya ayaa soo xaadirtay dalkan waxay ururka iskaashiga islaamka u qaabilsan yihiin xiriirka Soomaaliya marka uu shirka soo idlaadayna waxay dhamaantood isku raaceen in la joogo waqtigii la taageeri lahaa Soomaaliya maadaama dalka Soomaaliya uu ka soo kabanayo xaq dhaqaale iyo xaq nabadgelyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa saxaafadda u aqriyay war murtiyeedka shirkan laga soo saaray shirku wuxuu ku soo gabagaboobay inuu ka soo baxo communique ama dhambaal nuxurkiisu uu ahaa inuu adkeeyo dalalka xubnaha ka ah ururka islaamku ururka iskaashiga islaamku inay adkeeyaan midnimada dalka Soomaaliyeed iyo qarannimada dadka Soomaaliyeed waxay kaloo uu shirku tilmaamay ama uu go'aamiyay uu ku taliyay in Soomaaliya la garab istaago oo dhan kasta dhanka horumarka hay'adihiisa dawliga ah dhanka gargaarka bani aadamnimo ayaa isagana maxaa la yiraahdaa dalalku ay isku booriyeen inay ka taageeraan Soomaaliya sida ay shaaciyeen qaramada midoobay iyo bangiga adduunka Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa xaalad dhaqaale xumo oo ay muddo ku jirtay taas ayaana sababtay in qodobkani noqdo kan ugu weyn ee wakiilada dawladaha islaamku ay madaxda dawladda ugu hambalyeeyaan intii uu shirkani socday Aweys Maxamuud Jilco Cable TV Muqdisho